salaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeeni diblomaasi. Dowladda Turkiga ayaa si toos ah uga hortimid in Finland iyo Sweden ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO oo ay ka mid tahay. Madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa maanta salaadii Jimce kadib warbaahinta maruu la hadlayay waxa uu sheegay in labada dalba ay yihiin dalal taageera argagixisada. Waxa uu sheegay in kooxaha argagixis ahaan uga diiwaan gashan gudaha dalka Turkiga ay u noqdeen hooy, sidoo kalena ayba u doorteen xubno ka mid ah baarlamaanada dalalkaas. Waxa uu sheegay labada dalba inay garab siiyeen wadaadka fadhigiisu Mareykanka yahay la yiraahdo Fethullah Gulen, kaasoo dowladda Turkiga ku eedeysay inuu ka dambeeyay afgambigii la isku dayay sanadkii 2016. Waxa uu sheegay inay dara gaara ka leeyihiin isku beegidda ay isku soo beegeen xilli xaaladda dalka Ukraine ay kacsan tahay, taasoo ay doonayaan in wadamada kale oo NATO ay u dagaalamaan, maadaama heshiiska NATO uu dhigayo in haddii dal ka mid a dalalka NATO lasoo weeraro ay la mid tahay iyaga dhammaantooda lasoo weeraray. Turkiguna uu yahay dalka labaad oo ugu ciidanka badan gaashaanbuurta NATO, oo ay doonayso Sweden iyo Finland inay ka faa'iidaysato askar Turkiya oo u dagaalanta iyaga, taas oo uu diiday madaxweynaha Turkigu. Haddaba gaashaanbuurta NATO ayaa la dhisay sanadku markuu ahaa 1947 iyadoo lagu bilaabay 12 dal. Maantana waxay marayaan in ka badan dalalka ka midka ah 30 dal. Dalalka Turkiga iyo Greega oo ahaa laba dal oo iska soo horjeeday weligoodba siyaasad ahaan ayaa si isku mar ugu biiray gaashaanbuurta sanadku markuu ahaa 1952. weliba xilligaas oo dowladda Turkigu isku dayday inay ka hor istaagto Greegu inuu ku biiro gaashaanbuurtaas, balse ilaa ay hadda Turkigu qabaan in laga hiiliyo codsigoodana aan la dhageysan xilliga. Wixii ka dambeeyayna waxa uu sheegay madaxweynaha Turkigu in khaladaad badan ay galeen gaashaanbuurtan Mareykanku uu hogaaminayo, iyadoo la baal maray sharciga u degsan, kaasoo ah in 30 dal oo maanta ka mid ah gaashaanbuurta NATO ay wada ogolaadaan haddiiba ay doonayaan Finland iyo Sweden inay ku soo biiraan gaashaanbuurtaas. Hadalkan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa yimid kadib maalinimadii shalay markii si wada jira madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Finland ay ugu dhawaaqeen inay doonayaan si degdeg ah iyadoo aanu dhicin wax dib u dhac ah inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO. wax yar dabadeedna waxaa warbaahinta la hadlay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO oo sheegay in labada dalba ay ku soo dhaweynayaan gaashaanbuurtooda. sidoo kale Arbacadii waxaa soo gaaray dalalkaas ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska oo sheegay isaguna inuu taageero weyn siinayo loona baahan yahay labada dal si u helaan damaanad qaad amni inay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO. isla maalinimadii shalay ahayd dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay 100% taageersan tahay ku soo biiridda labada dal. gaashaanbuurta NATO ayaad moodaa inay tahay iyadu mid dhinac ka raran dowladaha reer galbeedka. mar walba dowlad Kirishtaan ay damacdo inay ku soo biirtana waa kuwo u fududeeya, halka dowladda Turkigu ay tahay dowladda kaliya oo Muslim ah oo ku jirta gaashaanbuurtaas. waxayna haatan dowladdan Turkigu ka soo horjeedaa inay si sabab la'aan ula dagaalanto dalka Ruushka oo ay u aragto inaanay daniba ugu jirin. maxaa yeelay dowladda Finland waxay la wadaagtaa dalka Ruushka soodin ka badan 1300 kiiloomitir, taasoo dowladda Ruushku marnaba aanay yeelayn inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. sidoo kale dowladda Turkigu oo ciidanka labaad oo ugu badan gaashaanbuurta NATO aanay diyaar u ahayn inay dhulka Finland intay timaado la dagaalanto dowladda Ruushka. sidoo kale haddii dowladaha Sweden iyo Finland ay ku soo biiraan gaashaanbuurta NATO, waxaa looga fadhiyaa dowladda Turkigu inay xayirto marinka badda madow, taasoo aanay dowladda Ruushku ogolaan doonin. waxaana halkaa ka dhalanaya isku dhac toos ah oo dowladaha Turkiga iyo Ruushka hormara, kaasoo sida aynu qiyaasayno inkastoo dastuurka NATO ay ku taalo in la isu hiiliyo, balse aanay aaminsanayn dowladda Turkigu haddii iyada lasoo weeraro inay dalalka reer galbeedka ah oo isu bahaysta Kirishtaannimadu aanay iyaga u hiilin doonin. maxaa yeelay waxaynu taa ka barannay madaxweynahana uu ka dheregsan yahay waa Erdogan in dowladdiisa oo la daadacaysa kooxaha Kurdiyiinta ee ka dagaalama gudaha dalka Suuriya weeraradana ka fuliya gudaha dalka Turkiga inay ka wada aamuseen dowladaha reer galbeedka ah oo ay gaashaanbuurta ka wada tirsan yihiin. weli ma aynaan maqal dowladda Turkiga oo la dagaalamaysa kooxaha ka soo horjeeda oo ay caawiyeen dowladahaasu, sidaas oo ay tahayna heshiiskooda uu qorayo inay iscaawiyaan. tan ayuu og yahay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan oo ah nin siyaasadda ku xeel dheer, waxaana uu hadda door biday inuu u diido labada dal inay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO. waxaynuse arkaynaa dhowaantan markay dowladda Turkigu diido in labada dal lagu soo dhaweeyay gaashaanbuurta NATO, waxa ay sameeyaan isbahaysigan oo Mareykanku hormuudka ka yahay.
bal inay jirto waxa ku qoran dastuurkooda oo ah haddii hal dowladood oo ka mid a dowladaha nato ay diido inaanay dowladdaasi ku biiri karin gaashaanbuurtaas, iyo inay ka dulboodaan turkiga oo diidanna ogolaadaan, halkaasna ay ku dhammaato gaashaanbuurtii la oran jiray nato. daawada waxaad moodaa dagaalkan ka socda gudaha dalka ukraine inuu la soo baxay wejiyo cusub, maadaama ay hadda ku soo biireen xidigihii gobolkaasu. fadlan muuqaalka like saar, mahadsanid.